عورة أبا لما ماجي عملت دي تنوع عرشوق ده يشالك كوعيوق عمر عقال بايدي يوم مع معارض بانا هذا حقكم مع الصوره هذا عرب يعني السوغانت halkan ku jirtay waa mid waaqac ay xilli kasta la shaqeynaysa laakiin waxa laga yaabaa reer buu hodla inaan aad ugu baraarugsanayn waa garanaysaa nimanka in yar buu hodle reer buu hodla ayaa sameeyay diyaarad yar oo maamila markiiba turkiga qaaday waxa loo qaaday hal abuur buu leeyahay runtii Soomaalidu waxay tiraahdaa hadalka hadii in aftahani kaaga horeeyo uu ku xaalufiya haduu kaaga dambeeyana uu ku xilaa anigu waxaan ahaa dadka meel fog uga soo kacay inaanu farxadda iyo damaashaadka iyo maalintan taariikhiga aanu kala qayb galno sidii halkan laga sheegay erayga ahaa jaamacadan bariga Afrika laanteeda buu hoodle waxa wanka ku gasheen sida bulshadu isu kiin barbar taagtay anaguna bulshadaas maanu ka mid nahay waliba anigu markan dib isu sii raaca aniga laftaydu buu hoodla ka soo jeeda walaal dadka qaarsaay ma yaqaaniin reer buu hoodlaanahay xaqiiqatan marka horta midkaasaanu ayaanu socodka iyagu ahaa inaanu kala qayb galno oo idin baarigno oo idin la xafladayno kaasi waa ka buu hoodle laba jeer horaanin mar waxaan imi 2003 bishii Juun sidaa imika inaan ku sheegay cambaraan markaa u socdo oo aan maansooyinka aan ka duubayay aan ka qaadayay hooyadeed baa markaa noolay ilaahay u naxariiste walaaladeed family-gooda markaan ugu imi wurwur baa looga yeedhay oo leeynin baa ku doonayay ee kaalayo ay ka timi dabadeedna taariikhda intii harsanayd bay halkaa iga sheegtay oo aan kaga duubay markaas uu ahaa mar labaad baanu haddana nimi markaa labaad ardaadhig baanu ahay oo inaan baanu doonaynay taasina si fiican bay noogu dhacday waa markii saddexaad imika maanta ee aan jaamacadan ka soo qayb galo saddexda kulan runtii saddex taariikhiya ayay ahaayeen kulankan aynu isugu nimi waa kulan aqooneed Soomaalidu bariga hore waxay oran jirtay ee aan tacliintan iyo cilmigu jirin haddaad xoolo dooni xamara agjoog haddaad xaraga dooni xamara agjoog haddaad xila dooni xamara agjoog xamaradu waa faras مثلا نبى مالين كيدي ماشيره قولي الريح حمر بقى يسيدي كان اللي شيء والحمر بقى هي فرس بقى لقى الله إياه مركايبك أنا وحلا هاي هداد حركات دوني أقونت أكشو هداد حيل دوني أقونت أكشو هداد حول دوني أقونت أكشو ما هذا مهم كأقون لو سوقوري أرجع قليل شبينا ده في الصومال وكرد إياه وأنو يرى بدل يا وحنو كبدل يقالن بدلش قال الشبين توحوها رجع سوحو كيمي markii looxa wax lagu dhigan jiray ee inanku markuu looxa ka soo gudbo ayuu daqalkii yaraana tuuraya marka halkii uun baa wali laga hayaa laakiin qalib bedelashaanu niri waxaad arkaysaa erayada qaar ba iska jira hada waxaad arkaysaa imika nin oranaya shir jaraa'id baan qabanaya jaraa'id ba lama joogay ama TV la jooga ama idaacado يعني أريهم باول لجوا سوي دقيقة كاسنا واقع حقيقة أقونتها لأد باللغة هذلي أقونتها نبغى نبغى هنا هي وأقون الدنيا آخرة بس كان حريصة أو إسلامية أقونتها نبغى هنا هي وحوي أقون هالأبور له وقراني سالم كأنه يربى بوه هذله ريربو هذلا أيه سمية ديار يرو معاملة مركبة تركيا قاعدة حلو قاضي هل أبور بوليين مركا أقونتو معها أنت أنو ديجانا أون معها وين هل أبور لو قدرة نبى ريربو هذا بشيء كأد قرح بدني كشيكي شعف رجاد وين عليه هذا هذاك أقونتهم كل شيء جيه وحول الجامعات اللي فلان ديجانا يجي تبعدنا وان كيمي ولا الكيو هرجيسة كل جريو ده بنو السعودية ودوري تطبعاتك وحول بوه هذاني هو يدي بوه هذا ديجان بو هو يدي بنو سرعنا يبو تبعدنا واحد يقول تري هو يمشنا دقيقة محل هذا كسان كوري بروح اللي هذا جامعة
masayta oo jaacadu waa maxay markaasaan ku aqoontu markay socoto waa halka ugu sareysa dabadna waxa ku tii hooyo meesha dhigata miyaanad aqoonin waxaan ku yiri damay hooyo waa sidaas weeye waxa ku tii sidaa maaha jaamacadu sidaa maaha hooyo jaamacadu waxa weeye dadkii dhintay aqoontooda iyo dadka nool aqoontooda la isku daray si dhalinyarada tareer loogu siiyo يعني rag waaweyn oo macallimiin ama sida u qeexi karin isaguna wuxuu arkay islaanta islaan buu iska joogto aan waxba garanayno wuxuu islahaa waxba ka garanaysa jaamacad iyo tacliin markii weynaaday buu arrinkii la yaabay marka aqoontu had iyo jeer waxay yiraahdaan culimadu cilmigu intaad barato ma aha waa intaad baadhaa weynaydaan intan ku koobnaan ee hal abuur aqoonta u yeeshaan deegaanada waxa ka khaldan ama ka dhiman وأنا كسحي كرتان وأنا حاجة نبضة كسحي كرتان وأنا حاجة هرمرك كسحي كرتان لكن إنك أقوم تاني مك عصري واحد نقطة إن شغال ولا جور راديو إن شغال لجور راديو وحكم مهم سن إن وحيابك وين لجور راديو تاس أقوم تانون لها تربو هذا وحنون لها أروح برجع هراني مية ما أنت فرق وين بعود حيو مجال ده أب كرتي سبدل وين بكم موضوع ودوري طبعا سنين تانشيء جيا كنت يا أيام نقول بقي لكن waxaan dib loo dardaarmi lahaa inay sii kordhisaan oo xagga nabadda iyo amniga calanka cad ah qaadataan oo deegaanka oo dhan garaadadana way fadhiyaane haddaan amni jirin tacliinina jiri mayso horumarna jiri maayo waa ogtiino siyaasaduna khilaafaad badan bay yeelataa waliba deegaankiinan marka dhinacyo badan ay ka timaado culayskeeday leedahay marka xagga in laga feejignaado oo runtii taana ka dadaashaan ayaan ku talin lahaa wax la maal gashado markaas waa xaqiiq waxa ugu muhiimsan dadka waxa ugu muhiimsan aqoonta inagu maalgelinta ganacsiga iyo baynu naqaanaa xoolaha iyo ta dadka ka muhiimsan wixii aad dadka gashataa ayuun baa noqonaya wax in badan soo noqonaya marka anigu kullayba intaasuun baa hadalkaygu u daaranaa buu hadda waa jeclay runtii inaan imaado laana maxaa yeelay taariikh badan baan wadaagnaa waa meel sugaaneed silsilada badan bay leedahay marka inaan meesha ka agdhawaado tan hore uu noqdo maahe xataa humbushaambush gabadhii la oran jiray ninkay isu heesayeen bariga waan sigay inaan la kulmo waxa kala aan sigay oo iyadana la igu uu caraabay talomiya ninkii guus arooskii lahaa hore iyo cambar ay ku kulmeen ninka inaan la kulmana isna waa sigay marka meeshani taariikh aad u badan bay leedahay waxaan bogaadinayaa wax badan ka qoray oo dhowr buu ka qoray إذا جاء وآذن عرب قري وسمتر بحنان قري وإسماعيل مرا قري آدبو مهتسيا هاي نكاسو ددال بدن بسميي لكن سوغان تكلاء الله السلسلة دي آذن عرب يو عمر عقاله كليه أي إما كدولة دكتاتر هذا وحنقوم معنا العورة أبا لما أجمعي عملات دي تنوع عرشوق يا شالك كو عيوق عمر عقال بايني iyo mucaarad baan ay hadan xaq ku maansoodo aadan arab yaani suugaanta halkan ku jirtay waa mid waaqac ay xilli kasta la shaqeynaysa laakiin waxa laga yaabaa reer buu hadda inaan aad ugu baraarugsanayn tan cambaree soo baxday un baa mala ku baraarugsantiin taa kalena in la ururiyo rag wali waxba odayaasha ay hayay noole in la ururiyaan iyana ku talin lahaa oo aanay duugoobin oo qoraal loo rogo intaasaan ku gabagabeynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.